كان كوريت إلهي ماذا إن كل بيت إنه نوع عفمات قبنا ولا إن الشباب كرنا إسفهموا كرنا يا إلهي ماذا أنت أسكتب ولا إنك أمانة إنك دير جليد يعني كديرتي إنه سمايان برنامج كان أما فكرة لون باهنا يديان كان باهنا beertan oo quruxda badan oo silan qalab ay dhamaystiran kadiirada inay suubiyaan yaa maanaday yoon wali kadiir galiyay inay macnaha joogteen shaqadii wadan wali fadhiinay saaliyar siin sheega inta badan hal abuurka dadka la kooyo Soomaalida dhaqan shawli iska deeyasho macnaha qofka markii wal suubi qof kale nafsiin ka deeyda aragta intii qof kasta fikrad gooni la kooyo qof koo fikir goosheene fikirkaas walaayar markuu soo dhaqaaq sameeyay ankiiraan xooga iftiin u sahlan dadka dhanna ka deeyaan fikirkii laakiin wali ka dhiyaasay marka dambe inuu fikirkii kana soo ku tawo dadka ka deeyadina go'aan ku hayna qofka deeyasho ku haytay meel mideysay dhaafaan marka dadkan oo barnaamijyadan amal sameeyo wali baahin in la ka dhiirigeliyo oo la liid jabin ko yoon wali ku baahan adkaysi wala oo dulqaadan ku baahan inta badan wali dhiyaasay oo aragnahay barnaamij kasta markii la bilaabo quruxdiis iyo bilawshiisa faylay waqtiga kooban barnaamijkii fashil ma dhamaade meel ku tabe waliba yoo lis laacnado oo lisna oo qof walba qofkan ku dambeeyay dhibaatada ero yalla suubi laakiin hadii commitment jirto go'aan jir dadka inta suubiyay quruxdan suubi hadii lama isad ku tabta hatta wali faday barnaamijkii la ka adkayso lawad meel deere najax noqday meel deere laakiin hadii oo walaagi qofku buu sudaafay adina may ko gali amal naqad kaliya ma business badan jiran oo fikrado badan jiran hal abuur badan jiran laakiin Soomaalida dhaqan jawliya walaagi bilow shoole ogi mahayna dhamaystir ma leh walaasi dhir suubiyo ku sababteen wala kumide in dadka weydiiyaan walaalo maalin taajir salaam geekin is barnaamijku suubi bareen taajirnada siisan ku qabtan waqti kooban oo bilooyin hore ee waliba sanadkii hore ahay in badanayd dadka barnaamijka forex leero shaqeeyay magaalada Soomaali guud ahaan dhaqaale badan la geliyay dhaqaalaas dadka aqoon ma lahayna oo geliyay barnaamijka si rasmi ah qofkii baxthi ka sameeyo fiiri dibambaar wal shaqeeyo oo la shaqeeyo business yaro laakiin ninka aqoonta in lahayn ee ka dheeradii qof suubiyo wala kun suubiyo in suubi dartiye ka gali meel lama deersi walaal ku fashilmeen usiina ka dhibtooda umadna ka dhibaatay may dhiid markii walaagay dhan intii barnaamijkii oo dhan si kala la fasiray nooc kale ku heli dadka shaqeysa ilaa hadda laakiin ninka aqoontiga baradiyo sababtaas ma lahaay marka ka deeyashada qofka suubi ku eeta meel mudeer kor walaagay ka shaltay laakiin hoob aad go'aanka ay aad qofkan ku deeyna aad suubid hal abuurkan aad go'aan sabtiyada meel deersid oo aad caajisna meel deersi karto waan guulaysaas kaliya business kale ma qof kasta go'aan leh yasaasan guulaysaday marka wali fadaanay dhalinyarada go'aanka qaadatay in la dhiirigeliyo dadka kale hadda ka habaa doonayo go'aansado doonay barnaamij suubiyan la dhiirigeliyo laakiin go'aan qaadashada muhiim ah go'aan hobadan qaadane ada walaan qofkan suubi ka deeyo kooyta dadka wala in sheeganay inay ka dhiirina inay wal qof suubiyan isku suubiyan oo macna rabitaan ku kooyna qofkan ka deeyo kooyta dhibaato lata halis lata khasaare lata insha Allah marka qof walba hadafku usulay iyo wali usoo dijeeli usoo habishay macna usoo rabitaan iyo ka salaysan oo eed usoo danayo in la fududaayo siin weydiisay walaasay wali tabartisan haynan ku leeyahay marka eedan ma siin dhalinyaradan wali ka dhiirigeliyaan shaqadii qabadan wali kale hadda ka deeydo oo barnaamijyo kale la kooyana yoon dhiirigeliyaan insha Allah eedan ma siin warkeen inta ka koobe assalamu alaykum wa rahmatullahi